maarayaha guud ee wakaalada biyaha magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa xarunta guud ee wakaalada biyuhu ku leedahay gudaha Hargeysa ku qaabilay hogaamiyaha xisbiga cadaaladda ee daryeelka u cidin jiray Faysal Cali Waraabe oo saaka dhankiisa weysada u soo biyay sidii ugu kurgeli lahaa xaqiiqda dhabta halka uu maraya mashruuca biyo balaarinta caasimadda Hargeysa oo sanadii laga soo gudbay Axmed Sootaxna isla markaana xilligan qaybtiisa koobaad ee xidhigida beebabka inta u dhaxaysa geedeble iyo sidoo kale magaalada Hargeysa ay tahay mid ku dhow gabagabo waxaana maarayuhu soo gudbiyay gudoomiyaha xisbiga u cid howlka shirarka isla xarunta guud ee wakaalada ka dhex binaysan halkaasi oo diyaar ku sii hayeen injineero kala duwan oo ka socda hay'adda UN Habitat banka horumarinta Jarmalka KfW Coca-Cola African Foundation iyo sidoo kale injineerada wakaalada biyaha Hargeysa halkaasi oo ku talagalay in injineeradu gudoomiyaha ka siiyaan kulan indhafur oo ku aadan mashruucan iyo maraaxilkii kala duwan ee uu soo maray gaar ahaan qaybaha kala duwan ee mashruucu koobsanayo ee kala ah magaalada dibadda iyo sidoo kale gudaheeda oo qaybta dhigidda beebabka inta u dhaxaysa geedeble iyo sidoo kale magaalada Hargeysa ee uu maalgelinaya midowga Yurub ay tahay mid xilligan ku dhow gabagabo isla markaana la anba qaadi doono marka ay soo dhamaadaan dhigidda beebabka xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa oo hirgelinayo banka horumarinta Jarmalka KfW oo ay ku lamaan yihiin barkada keedoo loogu talagalay in laga kala qutumiyo qaybo kala duwan oo xaafadaha Hargeysa sidoo kale waxa qayb ka mashruuca biyo balaarinta caasimadda Hargeysa mashruuca barkadaha ee Coca-Cola African Foundation oo dhankooda xilligan dhisidoodu ay tahay mid dhamaatay waana halka maarayaha guud ee wakaalada biyaha Hargeysa Maxamed Cali Axmed Daarood gudoomiyaha injineer Faysal Cali Waraabe si kooban ugu sharaxay maraaxilkii uu soo maray mashruucu iyo hadda halka la marayo network magaalada lagu sameeyay magaalada gudaheeda haday tahay kaydadkii biyaha cusba haday tahay pipingkii cusba ee caasimadda labadaas ay u kala baxaan marka mashruuca magaalada dibadiisa waa mashruuc ay si wada jir u maalgeliyeen midowga Yurub iyo sanduuqa horumarinta Somaliland waa mashruuc ay ku baxayso ku dhawaad 30 milyan oo dollar waa mashruuc qorshihiisu yahay ceelal cusubna in la qodo xarun cusub oo biyo soo tuura ama booster station cusubna in la sameeyo ama pump station cusubna in la sameeyo la soo dhigo pipe 23 kilomitir oo 24 inch amba 600 millimeter diameter dhumucdiisu tahay la soo dhigo geedeble ka soo bilaabay ceelasha hore hadlay geedeble ilaa Hargeysa mashruuca waxa maalgeliyay sanadooda sanduuqa horumarinta Somaliland iyo midowga Yurub waxa maamulka iyo fulintiisa gacanta inoogu haysa hay'adda UN Habitat waxaana weeyaan in la dhiso qorshihiisu barkada cusub oo laga kala dhisay xaafadaha kala duwan ee magaalada laba waxa laga dhisi doonaa keedkii hore biyaha mid waxa laga dhisi doonaa labana waxa laga dhisi doonaa Maxamuud Hayde iyo Axmed Dagax midna gacalnimo waxa laga dhisi doonaa marka qorshihiisu yahay shanta barkadood in la sameeyo cusub oo wada pipingkoodii oo cusub waana runtii mashruucan isleenahay mushkiladda imika jirta ee Hargeysa biyaha inaanay si siman u helin inuu meesha ka saaro kaliya wafdigu halkan kuma hakan oo waxay u sii gudbeen xarunta barkadaha kaydka biyaha Hargeysa halkaasi oo dhanka kale gudoomiyuhu soo kormeeray shaqo adag shaqaalaha wakaaladu ku foganayeen iyagoo ku jeenin qaran direyskooda taasi oo ku aadan sidii loo xadidi lahaa dhaqaalaha dadka danyarta ay ka qaadaan biyoolayaasha gudaha Hargeysa ku dhaamiya waxaana u sii gudbeen gudoomiyaha oo hor socdo maarayaha Maxamed Cali Daarood barkada kaydka biyaha Hargeysa dhageysiga xogaha biyoolayaasha ee halkaasi ku sugnaa oo intooda badan si weyn ugu soo xoomay markii ay soo galeen wafdigu waxay u sii jahaysteen jihada dhanka waqooyi ee magaalada Hargeysa korintaan ay soo gaadhin deegaanka geedeble oo qiyaasan Hargeysa u jira in ka badan 23 kilomitir isla markaana kaga beegan jihada dhanka waqooyi waxa ay sii mareen baraha control ee loogu talagalay in lagu maamulo biyaha Hargeysa imanaya kuwaas oo qaarkood xilligaas ay ka soconaysay shaqo adag halka kuwa kalena ay hayeen kuwa la afmeeray shaqadooda dhageysiga xogaha kala duwan ee injineerada ku fogan mashruucan iyo sidoo kale xogta gaaraneed ee maarayaha Maxamed Cali Daarood hogaamiyaha xisbiga cid uu gudbinay Kasakow mar kale ay soo gaadheen deegaanka geedeble halkaasi oo soo kormeeray injineerada kala duwan ee biyaha ka soo tuura geedeble isla markaana soo gaarsiiyay gudaha Hargeysa ee xilligan shaqeeya iyo sidoo kale xarunta guud ee barkadaha kaydka ee xilligan dhismahoodu soconayo ee ku yaala isla deegaanka geedeble hogaamiyaha injineer Faysal Cali Waraabe ayaa si dhow uga marxaati kacay mashruuca biyo balaarinta caasimadda Hargeysa inuu yahay mid guuleystay xilligan isla markaana shacbigu u ay doonaan biyo ku filan marka ay soo dhamaadaan qaybaha kala duwan ee mashruucu koobsanayo waxaanu dhanka kala tilmaamay inaan la rumaysan wararka dadku isla dhex marayaan ee ku aadan inaanu jirin biyo Hargeysa imanaya
isagoona tilmaamay in aqoontiisa iyo sidoo kale khibraddiisa gaar ahaaneed iyo waayo-aragnimada uu leeyahay injineernimada ay tahay mid u sahlaysa inuu si dhow u ogaan karo mashruucan iyo inta uu qaadan karo iyo xaddiga tayo ee qarniyo badan shacbigu dhaxli doonaan biyo ku filan. Korintaan hogaamiyaha mucaaradka UCID kelmadiisa warbaahinta ka odhan waxaa halkaa erayo kooban oo mahadcelina ka jeediyey maareeye Maxamed Cali Daarood oo uga mahadceliyey mas-uuliyiinta xisbiga cadaaladda ee daryeelka UCID sida mar kasta uga go'an tahay xog ogaal noqoshada xaaladaha dhabtay hadba soo wajaha shacbiga Somaliland. laakiin mar kastaba wakaaladda biyaha hay'adaha la shaqeynaya oo ku dadaalayaan inay riixaan hay'adahan dedejiyaan isla mar ahaanta aynu iska hubino wixii laynoo qabanayay wax sax ah inuu yahay. aad baan ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaha Engineer Faisal Cali Waraabe oo runtii ah shakhsiyaadka Somaliland dacal yani arrimaha bulshada u danta ah kow ka ah oo ku macruufa ay soo siiyeen warbixinta hay'adaha kala duwan ee ka shaqeeya dhammaantood mashaariicda waxay nooga mas'uul hay'ado hay'adaha caalamiga ah nooga shaqeeya waa nidaam leh checks and balances fara badan. waxaa intaa kadib hogaamiye Engineer Faisal Cali Waraabe fariin u diray shacbiga ku dhaqan magaalada Hargeysa. aan ugu mahadnaqayaa maareeyaha iyo hay'adii ka shaqeeya oo dhan marka maareeyaha codsanayaan warbixin la siiyo wuxuu noo bilaabay oo noo casuumay intaasoo hay'adood oo soo tiriyay oo ku hawlan biyagelinta mashruucan biyagelinta waxa weeye halkaa wax nooga muuqatay in hawl weyn socoto si xawli loo socoto waxa weeye dadkeenu ku turkuteenta isku xukuntaa halka waxa naga baxay maqanaysaa wixii la yiri iyo waa la yiri baa ka baxday xaqadan soo taabanay waanu sheegnay maareeyaha iyo hay'adahana in Hargeysa biyo ka sugiso si aad dhaqso uga sugiso waxaan jecelahay insha Allah taala inuu timetable ka sameeyo waqti isku dhamaado waa dhan yahay marka biyaha intii ceesh laga keenay magaalada dusheeda la keenayay distribution kii magaalada loo qaybinayay baa yaa u baahan. waxaan sheegay qolooyinka degan magaalada Saay koonfurta Hargeysa ee lagu sheekay biyo soo gaadhmaayo hadda waxaan tusay ilaa 5 magaalada Saay barkadood in laga sameeyo oo qaarsiinka siga in naxar agtiisa laga sameeyo marha laga sameeyo marka waa la hubsadaa. Barnaamijkana waxa uu Engineer Faisal Cali Waraabe hogaamiyaha xisbiga cadaaladda ee daryeelka UCID si qoto dheer uga markhaati kacay mashruuca biyo balaarinta caasimadda Hargeysa iyo sidoo kale halka uu hadda marayo isagoo tilmaamay inuu yahay mid shacbigu ka dhaxli doonaan biyo ku filan. Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga ee Somali Cable magaalada Hargeysa.